xildhibaanada golaha deegaanka gobolka Gabiley ayaa maanta warbaahinta la hadlay. xildhibaanada ayaa waxa ay ka soo horjeesteen deeq raashin oo gudida coronavirus ee Somaliland u qoondeysay gobolka Gabiley. xildhibaanadani ayaa waxa ay wax laga xumaado ku tilmaameen inay xukuumadda Somaliland oo gobolka Gabiley cod badan ka heshay maanta ay quursato waa sida ay hadalka u dhigeen. xildhibaanada oo hadalkooda sii wata ayaa waxa ay gudida COVID-19 cod dheer ugu sheegeen in aanay aqbalaynin qoondada 2000 ee qoys isla markaasina gobolka Gabiley xaqii uu ku lahaa ay gudida uga fadhiyaan waa sida ay hadalka u dhigeen. dareen taabtay golaha deegaanka gobolka Gabiley waxaana soo kiciyay dareen taabtay shacabka reer Gabiley. nasiib daro waxaa soo baxday in gobolka Gabiley wixii yimi ee la qaybinay lagu qaybiyo tuula ahaan taasina waa ayaan daro. waxaan leenahay haddii aydan Gabiley wax u qalanto aydan keenin Gabiley la keeni maayo raashinkaas haddii aad keentaan raashinkaas soo dhaafi maayo caawidla halkaas ka soo celinaa gudida waxaan leeyahay runtii halka dib ugu noqda Gabiley uma cuntanto waxa weey population ahaan iyo waxa weey maxaad ahaanba gobolkan Gabiley waad ogtiin intaas sanadood inuu u taagnaa gobolnimadeedii in la siiyo soo Soomaaliya taraf raadinayso ee gobolkan Gabileyna runtii raadinayo gobolnimadiisa wixii culays iyo barashar hore ugu soo dhacay waa loo soo dulqaatay laakiin tan maanta runtii waan ka dhiidhiinaa sababta ugu dhiidhiinayna waxay tahay waxa weey go'aankii gudidu soo jeedisay si gaar ah gobolka Gabiley dhaqaaleeda u taabtay iyadoo taasi jirto haddana wixii maanta deeq Somaliland soo gaadhay in la yiraahdo Gabiley tuula ahaan waxa lagu siiyo yimidna qabanaysa ma ahan inuu warintayada waan diidanahay gudidna waxaan leenahay dib isku noqda libaax bahalkan la yiraahdo laba raqood lagama wada kiciyo Soomaalidu tira annaguna Gabiley ahaan maanta gudida COVID-19 waxaanu qaadanay go'aankoodii hore ee ahaa in dhaqaale ahaan cumahana la qabto wixii la soo galayba la xidho waanu qaadanay maanta waxaan leeyahay libaax laba raqood lagama wada kiciye arrintaasi nama qabato magaalada Gabiley ee aragteen waxa ku nool 100,000 qof 100,000 qofba aqaladay fadhiyaan intii shaqeynaysan waa la soo fadhiisay de waxa loo keenayaa haddana wax gaaraya ahayn iyadna nama qabateen 2,000 qoys baa la yidhi in la siiyo oo heer tuulaha la xisaabiyo de taasi nama qabataan leenahay annagu wixii aan ku noolayn guddiga idinka joojiyay maantana wixii idinka idin soo gaaray inaad tidhaahdaan war Gabiley tuulooyinka ha la mid noqoto nama qabatay maanta sadbursiimaanu doonno wixii aan ku noolayn ba idinka xid ilmaada reeyal gobol baanu gobol wuxuu leeyahay helo duu gobol badan yahay yaadi kalaba laakiin intaas soo degmo oo gobolka Gabiley ka soo jeeda 2,000 qoys 30,000 yarna ma qabtaan war ilmaada reeyal haddana gobolnimadeedu sax aanay ahayn oo sida gobolnimada wax noogu qabeen gobolnimada naga qaato 6 gobol iyo Gabiley baan u baahan abaal ku qabnaay noo soo celiya runtii gudida wax qaybisay COVID-19 cadaaladda ma yimid cadaaladda u noqdaan leh waxay ka cuntamayaan maaha waxaan Gabiley u soo calaabadisteen gobolka Gabiley amba degmadiisa waxa ka sii farcama 5 degmo oo kale 5 degmo ee kale waxa ka sii farcama 150 tuulo oo kale haday moodayaan Gabiley inay yar tahay ma yara waxaan doonaynaa inaad masaakiinta jamhuuriyadda Somaliland saxa ugu qaybisaan raashinka 39,000 ee qoys astaghfiruhu wa na'uudu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina kulli saaka golaha badidiisu waxay isugu yimaadeen inay xoojiyaan kelmadii gudoomiyaha degmada ee uu shalay jeediyay ee ku saabsanayd waxa loo qoondeeyay dadka masaakiinta ah ee masiibadan ay asiibtay horta waxa caadi iska ah marka wax la qiyaasayo ama la qaybinayaba had iyo jeer de baahida waxa lagu saleeyaa sida deegaanadu ay u kala baahi badan yihiin nasiib daro de waxa ka soo yeeray ee loo qoday gobolka Gabiley maaha tii uu cuntaysay maaha raagudida waxaan oran lahayn dib ha isugu noqdaan baahidana ha ku saleeyaan sida loo kala tiro badan yahay gobolkan kursiga madaxweynaha maanta chance leeyina ka adkaan karayna in lagu tashado ayuu baan u fahnaano Gabiley maanta ka adkaan karayna in leey mid gobol mid taar mid daneed mid dadeed midna lama eeg waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Udiin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.